بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad u salaameynaa asxaabta ku xidhan channelka Furdus Saani. waxaan u mahad celinaynaa asxaabtii hore. waxaan aad iyo aad mar labaad u mahad celinaynaa asxaabta cusub oo leenay soo dhawaada hanaga caatisina. waxaan kaloo u mahad celinayaa ama aan u faaqi doonaa insha Allah asxaabta soo socota. waxaan leeyahay please subscribe, like, share, comment ugu xaqiina. intaasi waa shuruudaha YouTube yaa la isku yaabin YouTube yaa la isku yaabin. waxaan aad u soo dhaweynayaa caawa ku faraxsanahay walaashay Xabsa mar waalid baan u ahay mar dhowr meelood baan anagu isku nahay marka walaashay igu qaaliya ay caawiso marti qaaday barnaamij aad macaan waan u qaadaa dhigi doona. marka hore waxaan ku soo dhaweyn doonaa waxa weeyaan Xabsa ku soo dhawo channelka Furdus Saani iyo asxaabtii Furdus Saani waxa leedahay. وإذن سلام مركو جورس أصحاب فردوس تنزاني ما هو قارات تنزاني وإذن سلام ولا لا قاليه محل يجري جنان كالكعية سبسكرايب بالشرفة لايك تاسي شير جري ولا شيء ودي برنامج تيال إنسو سيديسو عاون دي وهبينك يقول يا في اليوتيوب هبينك يقول أنا أخوك عليها لأنه بيقول لك على قف كمان تقول رسقي ما تو أنا أخوك عليها كوك على جلال وحلقة وذا سيد بر ما بحلقوا قولوا ما هندي ما هندي لا قاعد بيكلسوا بيلا بريسا الله لك مركا دقة إنهم بيننا حدا دقة كصومالي بس ديار واي مركا عاون وانكي ما هي صوماليا لقوا مقية هرجيسة لكن وحنو هي جلال بربان ملحوا مرنا يادو مع لحمة نقدر مركا وين ما حسيتها ولا شيء أدي أدبان وفرح سنة هاي أنا جوا كلية إن بدي أركض هل قفطة مالين إلى دوبي إن ذهبوا دين بوسطة مركو شفته أنت كلاوا كلية أنا هذا كلا بعدنا ويجحوا مع ذي ذهبوا دين بوس إن شاء الله مركا وان شعله هنا عن هلا لمانة إلى صوفر في يوتيوب كا وانكو فرح سنة أدي أد وأنا سود وينيا محن عاود قهد للدونا برنامج قهد للدونا وحيت هاي صاحبة النمضح حبسان دمرك أم رجع ما إنه دمر باين هاي صاحبتي لماذا دمرك كده حيسميها ها صاحبتي لماذا دمرك كده حيسا هرتماني دويتوله عن إذا كده بقى يوحى عكو حسوسينا برنامج كان دوبه ولا شيء نسر حسين أوفيشيال أيا وحى أي آد للصاحبة هاي وأي آد نفتي دي مال كده بدور لكتي صاحبتي كله صاحبتي كله ويسكو في عناية marka maalin marka hadan maanta ay iga wiiqmato saaxiib minhin maxay ku dhacday deetana nasra xuseen way ka yara wiiqmatay markay ka wiiqmatay saaxiibadeed baa soo jafaysaa sida wiiqmatay fancy waxaalada ku yaraatay afkaas aad مثلا مقاله way ka yara jajeersantay haday maal noqoto haday qayb noqoto haddii xilihii oo ka tagay noqoto iyadii oo xanuunsatay saaxiibteedii ay halkay ka garab istaagi lahayd oo ay barbar istaagi lahayd eg saaxiibadaha ku waafiqin wixii qaladaada ee macsi ah xitaa walaalkaa ha ku xitaa ninka waxa lagu leeyahay gabadhaada ha ku waafiqin wixii ma garanaysaa ee macsi ah adiga inaan macsida ka qabto laakiin saaxiibka fiicani maanu xabsay ahaan jirin saaxiibka fiican waa kan wanaaga ku horseeda xumahana ka reeba markaad dhiban tahana garabkaaga noqdo markaad faraxsan tahana garabkaaga noqdo laakiin saaxiibaha sanadkan jiro waxa waa intaad faraxsanta mise Allah taala haysto oo wax yar oo haysato ee ku kala kacsanta garabkaaga joogan maalinka ka yara jabto ka qaloocato dikriga ba meel cilla soo istaagay haddana waxaaba ku soo biirayba imaka xabsaan saaxiib la aha sir baan u sheeganayaa soo maaha sirti banaanka keenaya sirti baaba banaanka la keenaya haddaan istagaalno waliba waxa igaga darnad inantaa jafaysiin isla xuseen ee saaxiibadeeda ahay ee waxa ku xitaa heer waxay gaadhay markay caafimaad doonanayso inay maalka waa YouTube la inanta nasba xuseen official barasho wanaagsan waynan aan aad wallahi ilaahay darti baan u jecelahay ma sha Allah ilaahay darti baan u jecelahay marka inantaas maalin dhaweyd baan barnaamijkeeda ka hadlay barnaamijkeedii Soomaaliland baa ugu diray Soomaalidii baa u wada kacday dad badan baa aniga ila soo xiriiray si maxkamad baa ku socotay ninkeeda maxkamad keenay marka mar walba waxaan leeyahay asxaabta oo dhan Soomaaliyeey nasra xuseen wali way idin baahan tahay bilis waxa u haray waa 2 bilood waxyaabaha YouTube-ka la soo dhigay ee la leeyahay waa beenteeda been ma sheegay maaha waxaan aragnay oo shaahidtuma waxa weeyaan waraaqihii maxkamadda loogu keenay
maxkamadda warqadihii loogu keenay waa aragnay waxa kaloo aan aragnay fiidiyoyo kale oo cadaymo ah haddii loo baahdo ninkaas inuu maxkamad keenayo markaa Soomaali waxaan leeyahay mar kasta inanta ha loo kaco oo inantaas Soomaalidii maalintii dhaweyn laga yara jajabiya la lahaa waa beenteeda maxkamadina ma jirto way jirtaa runtii way jirtaa marka aan ku soo noqono saaxiibtinimada ka jafnay dumar saaxiibtinimada dumar aniga waxay ugu dhacday aan ku warramo hooyadii baa horta waxay oran jirtay anu xanaa qof iska naxariis badan markaas qofka la saaxiibo kaliya laabaan wada siin jir saaxiib heer looga tala galay waxba ma kala reebin Soomaalida kamid ma wax aan kala reebin jiray mala kulli iskaba raacin jiray ay maxaa kugu ay give up baan oran jiray waan isdhiibay afgaanad dabadeetana waxay ugu dhacday waan doosdaa markaan jajabinayay ugu daray kalmadiina igu adkaatay ay ugu taqrinayeen dabadeetana waxaa dhacday saaxiibatay heer waxay ii gaadhay in la ii diyaariyo kursi وصاحبتي بيل باقاتا والله واتحنا شيكدي بيل باقاتا بيل كان marka laba qaybood laga dhigo qayb baan yada siiya waa saaxiibada xuma haysato waa garoob baan oran jiray garoob ama carmal baan anaga niraahna naag la furay gabar la furay dabadeetana laba qaybood marka laga dhigo qayb baan siiya qaybtii aan siiyay dad kale iigu sameeyay walaala way baxday waxa xitaa waxa la ii diyaariyay sixir xitaa waxa la ii diyaariyay suntii ilaahay amarkiisa cuntadii sunta lagu daray bisad baa iga soo horeysay way koqtay bartay taagnay ayay ku katay waa saaxiibada sheekada alaaba ina barnaamijin ka sameeyno saaxiibtinimadii dabadeetana waan isweydiiyay waxaan idhi marka qofkan adigan marka la saaxiibto waxa jeceshay inay horumar la gaadho asagan inuu lug ilaahay waxaan ku jirkabtiisa tole asna kafataadu talaya marka laakiin saaxiibka wanaagsani waxa weeyaan ka guushaada ku farxa daradaadana ka ooya ka waxa weeyaan marka aad u baahan dhiban tahay ku garbar istaaga marka aad macsi iyo xumaan iyo waxa galeysana ka reeba marka xitaa waxa jirta wallahi inaan aad saaxiib u lahay oo aad u jecelahay iyadana hoodo mahad gurkaygu ugu horeeyay markii aan guursaday waan kala tagnay aniga ninkii waan kala tagnay calafkayga kala galay marka u sheegay aan ninkii maanta isoo furay waa oyday saaxiibtinimo ilma anigu waan qaslaya laakiin iyadu maanta way nooshahay hargeysay degantay hoodo ma hadiiriye qof igu qaaliyeysay saaxiibka iminka jooga walaale marka lagu soo furo tiibaa la soo furay telefoonka is qabsan ceeb aadan lahayn baan Google ayaa lagu gelinaya marka waxaan leeyahay dumaro please dumarka waxa firdowsay isceebeeyo oo xogtooda way kala tagaan markay fiiriya meeshay dumarku isgarab istaagi lahaayeen garab isiin lahaayeen rag iska dhicin lahaayeen waxa arkaysaa gabar ceebteeda raadinayso gabar soo adeegsanaya gabar xumaanta adeegsanayso ninku hadduu ku farax xumaynayo gabar baa lagu soo adeegsanaya nimanku ma aragtay fiiriya xitaa fiiriyoyadana nagu batay la leeyahay fiiriyoyada gabar baa lagu soo gabar baa loo soo adeegsanaya hadda dumarka aan isgarab istaagi lahayn oo rag aan iska dhicin lahayn maya siga yaraan iska dhicinin maya ninka waxa jira waa walaalka uu kula dhashay uu ku dhalay laakiin haday dumarku daacad isku noqdaan oo isku duubna saaxiibtinimada ilaahay ninka laftigiisu weynoo wanaagsanaan soo waxa la leeyahay nin gabadhu waxa ay wanaajisaa ninka iyo family dhan xitaa ninka xun gabadhu way bedeli kartaa haddaan ku raado waa walaalkay waa in adeerkay waa saaxiibkay waa wixiiba soo ma haddaan ku raado maanta xabsaa doonaysa inaad xumayso soo ma aniga horta ay xumaan oo mid waliba odhan lahay ilaahay baa kugu dhaafin la xumaan lahaa marka waxaan la yaabay hadday YouTube tahay markii fahiima natural bagara dumar baa ugu badnaa waxa jafiyay fiiriya gabar ceebteeda hadduu social media soo galo waxa ka sheekeenayo oo dadka sii tusinayo oo sii faafinayo waa dumarka hadda imika markii la lahaa khadar horta dambiga inuu galo ilaahay inaka waan soo qaadanay tusaale ahaan maaniga maaha waa walaalkay waa inan wanaagsan oo qalbi fiican isfahiima markii la lahaa fiidiyo uu fiima ka duubay rag way wada lahaa way soo wada boodayeen dumarkana ma soo boodayaan markaas qosarka waxa leeyahay yeena noqmin maya xitaa waxa aan jecelahay rag iyo dumarkina ay tartameen waayo ma kala maarano waxa weeyaan laf iyo dhabarkeed lafta laf iyo dhabarku hadduu ku jabo de socod ma jiro sama ragga waxa weeyaan dhabarka yagi
ha ilaaliyaan hablaha oo dumarkay qabaan ilaahay kaga cabsadaan oo hablahan ay la saaxiibayaan walaalahoodana ceebtooda ha asturaan waayo maanta ninka isaga ay asturi lahaa marka waxaan leeyahay fihi Nasra Xuseen ilaahay waa haw gargaaro saaxiibad jafta iyo mid been ka sheegta iyo mid way ku taadina kuwaana qaadan leeyahay qofkaas isagu iskaranaya marka waxaan leeyahay Nasra runtii waa inan waan ku bari doonaa channelkeeda aan caaw ku bari marka waxaan leeyahay inantaas hore ina qalbi fiican maanta haddii qof yaro saqiir ku raado habaryar way ka horreysay YouTube maanta waxaan u baahanahay shout out isla caaw waxaad arkaysaa iyadoo shout out bilaa shuruuda naxariista wanaagsan maxaa loo dhigaa dadka wanaagsan waa imtixaan إلهي محو سورة البقرة كلها ألف لام ميم أحسب الناس أن يترك آمنا وهم لا يفتنون dadkan ma waxa ay moodayaan in la iskaga tagaayo ilaahay waa rumayna iyaga kuwii ka horeeyay iyagana waa imtixaan iyagana waa imtixaamina ama nin ha lagu ka imtixaamo ama faqri ha lagu ka imtixaamo ama nolosha saaxiibad xun oo sidaa kaaga jafto been kaa sheegto oo ku dhigto ceeb aadan lahayn hataa kuu saarto mid labaad xitaa heer waxa ay gaadhay marka ay turkan caafimaad bay u tagtay inta la soo hadashay ku tir walaalay waxaan u baahanay garab istaag way barista gabadha ma ceebteeda baan ilaa beena hatta haday ceeb leedahay waa asturi laha waa nu qarin laha ilaan hadaa ceebta qaris birin adiga taada ilaaha ku qarnay ilaahay baa ku qarinay marka waxaan ku soo gabagabaynaynaa asxaabay Nasra Xuseen wali 2 bilood baa haray oo ayaama ka tageen maxkamadii waa u socod waa bilaamaysaa waa bisha 6 waxa inta yar baa u hadhay waxaan leeyahay ka caajisina Nasra Xuseen wali garab ay ka baahan tahay Nasra Xuseen qofkii share garay oo shout out u sameyn kara YouTube-keeda qofkii share garay u sameyn kara qofkii maal iyo lacag haysta ee ku caawin kara Nasra video-ga dambe ee la soo duubay ee la doonayo yani dadku saaxiib ma wada aha buu yiri abwaan dadku saaxiib ma wada aha mid baa kula raba sir iyo mid baa kula raba adigu dhibaato marka dadku saaxiib ma wada aha video-ga u dambeeyay ee lagu beeninayo inay maxkamad aadayso waa video waa wax jira waxaan leenahay asxaabi waxaan idinkaga tagaa waxa weeyaan sida iyo nabadgelyo